السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله حضرت استونا فيديو هوري لينكيغا هوست soo dhigay ee set app-ka sida loola soo degayo file-ka blog yaraa ee ku hoosta idin soo dhigaya YouTube-ka markaad fiidiyoga daawatid description-ka fur linkiga soo dhigay ku dhufo kadib markaad ku dhufato halkan ayaa uu ku keenaya USSD code ama set app kadibna oo blog yaraa aan markaan app-ka sameeyay meesha dhignay haddaba si aad blog-ga ugu darsatid Sketchware download horta kan odhanaysaa kadibna u soo download garanaya file aad u yar oo ka dhow bisba ku dhamaadayba haddaba soo kuma dhamaan waad ka soo baxaysaa watan Sketchware marka aad gasho kadibna halkaas saddexda xidigo saddexda bahalaya taabanaysaa kadibna xaranaysaa taw hooseyso developer tool kadibna block manager baad taabanaysaa kadibna maxaa odhanaysaa add ayaad odhanaysaa markaad add tiraahid halka magaca doonta ayaad u bixinaysaa waxaad u bixinba set app block iskaga bixi color-ka doontana halkaa rastaawo ama kala xansiinaya color casban siinaya bes si fadlanaysaa waxa uu ku sameeyay wadarkaas set app block kadibna ku dul dhufaysa kadibna si aad ula soo degtid blog-ga ay soo dejistay waxa taabanaysaa Fadlan arrowga yar kadibna import odhanaysaa kadibna waxaad ka sii dooranaysaa downloadska way downloadsku kala file-ka soo dejistay kadibna halkan ayaad ka dhex baaraysaa set app kiyal soo degtay waka USD code set app kaasada soo gelisa select odhanaysaa kadibna waka xagaa saxda saar import kadibna imika si fiican uu kugu jira Sketchware baalkaas haddaba waxaad ku noqonaysaa app-kaaga samaystay marka kala samaystay magaciisa aad uga dhigtay project aad iska leh kaliya waxaan tusay in halkan blog-gi soo gashay kadibna arkaysaa set app block kaas inuu kugu soo biiray kadibna saasi aad baashiyareed ku heshay marka guul ayaan rajeynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.